ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad danab ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay dhulka hawdka ah ama duurka ee hoostaga deegaanada Leego iyo Jameeco oo ka wada tirsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Baay. ujeedka howlgalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanadan iyo deegaanada ku xeeran. intii howlgalku socday ciidanku waxa ay sameeyeen baaritaano lagu xaqiijinayo ammaanka argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab ayaa si dhuumaalaysiya oo ay ku jirto fulaynimo waxa ay isku dayayaan inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanadan. sidoo kale ciidanka kumaandooska danab ayaa burburiyay meelaha ay Al-Shabaab gabaad ka dhiganayeen oo ay kamid ahaayeen goobo ay lacaga baada kaga qaadi jireen shacabka Soomaan ee masaakiinta ah isla markaana ay saameysay abaartii inta muddada ka jirtay dalkeena iyadoo arxanlaawayaasha Al-Shabaabna ay caadiysteen inay xoolahooda si qasab ah kaga qaadaan. hase yeeshee geesiyaasha kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hortagay oo gabi ahaanba burburiyay goob kasta oo ay gabaad u ahayd argagixisada sida uu noo xaqiijiyay taliyaha ururka afraad guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed dhamme Maxamed Cabduqaadir Cali oo hogaaminayay howlgalka. argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab waa kuwa shacabka Soomaaliyeed u geysta gabood fallo isugu jira dhac, boob, kufsi. taa beddelkeeda ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab waxa ay ka go'an inay gacanna kula dagaalamaan cadowga argagixisada ah ee ku soo duulay shacabka gacanna ay ku caawiyaan shacabka Soomaaliyeed. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gobolka Shabeellaha Hoose.